meeshaan cilada ah shalay liiga kaxeeyay waa kana meesha aad taagnaa dadweynaha Soomaaliyeed waxa ka codsanaya inta meelaha warwareeg lahaa inay guri ii suubiyaan iyo waxa ku shaqaystay Hinde Axmed Cabdullaahi inaysan weligeed arag hooyadii dhashay oo loo sheegay inay dhimatay waxa u si dheer oo qalbigeeda gubaya cidlo iyo wehel la'aan haysata iyada iyo wiilkeeda yar kadib markii uu isna dhowaan geeriyooday Allah u naxariistay aabaheed Axmed oo gacanta ku wada hayay iyadoo la niyad jabsaneed xaalad ka dhalatay markii ninkii ay wiilka u dhashay uu ku deyriyay ayaa waxa geerida aabaheed ay u horseeday marxalad kale oo aad u adag sababtayna in walaal iyo ehel wixii ay lahayd ay iyaguna ku deyriyaan wiilkeeda yar sida ay sheegtay taasi oo sababtay in xilli qorax kuleyl ah bacaad cidlo ah ay oohin la fariisato sidoo kale wiilka yar awgii waxa ay ku weysay shaqooyin dhowr reer oo ay u shaqaynaysay oo xitaa waxaa dhacday mararka qaar in laga jartay lacagtii ay ku shaqaynaysay markii bishu ay dhammaatay hooyo Hindo iyo wiilkeeda yar ee Haashim iyada oo qoraxdu ay kulushahay ayaa xaalad haysata awgeed waxaa 5 saac oo maalmeed laga waday halkan oo ah meel qorax ah wasaq ah cidlo ah iyagoo fadhiya waxaana markaas la geeyay gurigan si looga wado wadadan cidlada oo ay ku dayacnaayeen waxaana ay u baahan yihiin garab aabi hooyadii anoo yar oo 6 bilood ayay dhimatay aabahayna hadda dhow ayuu dhintay Soonfur aaba ayaa koodii hore iyo igu waxaan jira aaba wixii yar uu helo way siin jiray haddana uu dhintay ilaa u naxariisto kadib baahideeda banaanka imaatay oo dadkii qaraabada igu deeriyeen ninkana waa ideeriyay shaqaalnimo iyo waxa ku noolaa intaas ii wareeg waa iscelin jiray laakiin meel walba aan tago hadda bil joogo bisha kale cunuga ayaa waxa leenayo sidaas ay soo saara banaanka wax igu hooyo igu dhalin hooyo kaligeega aabe igaga dhashay walaalahan saasay way ideeriyeen baani wax walaalo oo maanta ii daqnanayo ama wax ii waxeenayo ma jirto Farxiye Axmed Xuseen oo iyada iyo dadka dariska la ah ay jidka cidlada ah ka soo wadeen Hinda ayaa ka codsatay bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan masaakiintan dhiban waxaan ka codsan lahaa inay gabadhan caawiyaan oo dhiban tahay ayadoo dhiban oo halkaas ku uunaysan ayaan ka soo wada 5 saac marka dadweynaha waxaan ka codsanayaa gabadha masaakiinta inay garab siiyaan dadkeedu dad ma qabto waalidkeedana way dhinteen cunuga yarka ayaa haysataa cunugana ninkii dhal uu ku deeriyay marka waxay ka rabtaa dadweynaha qeyralaha siiyo inay caawiyaan gabadha dhiban aniga Soomaalinimo iyo Islaamnimo u soo xareeyay iyo gabar walaashan inay tahay waxaan jeclaan lahaa gabadhan in la soo loo gargaaro Hinda oo dareen ahaan aad u niyad jabsan waxa ay korsaar ku yihiin iyada iyo wiilkeeduba reerkan Islaameed oo dhaqaale ahaan aan kaafin karin nolosha iyo xaaladda haysata waxaana adag in wiilkeeda loo helo wixii la siin lahaa oo caanuhu ay ugu horeeyaan waxaana qof walba oo Soomaaliyeed oo dareen damqasho leh ay u dirtay fariintan ummadda dadweynaha Soomaaliyeed waxa ka codsanaya intii hooyo way dareemi kartaa maanta booskan taaganahay waxa ka codsanaya meel dago iyo waxa ku shaqaystay inay suubiyaan hooyaan dago maxamed idil raadiyaha telefishinka dalsan muqdisho shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE